الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله، الله تبارك وتعالى وحو نبيgiisa محمد كله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت utoos sidii lagu amray dariiqa ugu toos adiga kaliya ma ahe waman taaba macaka adiga dadka ilaahay u soo noqday ku raacsani dariiqa toosan raaca wala tatqaw xadkana ha gudbina marka dariiqa ku toosaysaan xadka ha dhaafina. Allah tabaaraka wa ta'ala waxaad sameeynaysan waa arkay ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هؤلاء oo xaqooda ha aadina kuwa dulmiga sameeyay shirkiga sameeyay macaasidiya fisqiga sameeyay kuwana xaqooda ha aadina. halka waxa ka soo baxay dariiqa la isfaray ee quraanku inoo jideeyay nabiguna sharxay ee cadeeyay waxa weeyaan waa dariiqa toosan يا ربي تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جدكيغي وكاس الراعة جدتك كلا اللي حنينا اسكتشروها الراعنا ولا تتبعوا السبل جدتك كلا جدك قرم مرياي وكو سورة الفاتحة إلهي كشاقي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم واجدك أنهينه غير المغضوب عليهم واجدك اللي نوقدقيه ولا الضالين واجدك اللي نوقدقيه شدت كاس إسك إلالية لليه لما ميت بيكو إيمانيا أما ماشي إلهي وحد جيب الروح كسو كمريا أما ماشي ألا وحد جيبه كشش مريا أو رافيا وأنا مدى آيات ديتي فاستقم بالليس أمري ولا تضغوا بالسديدي ولا تركنون بالسديدي لبوا بالسديدي منه ولا امر ومدن الهي وحو كتلمامي تبارك وتعالى امد عداله كسعوتو دحدحاد او جيدكاسي ان دينعنا اوغا بخين نبينا صلوات ربي والسلام عليه مركو شرحيي مالنت قيامه امده اني اسكو مرخاتي كعي دونان وحو النبي شيغي صلى الله عليه وسلم امده انغا هوريي اني امدني كو مرخاتي كعي دونتو نبييدودي iyagu markay isqabsadaan oo alla nabiyada ku yiraahdo ma gaarsiiseen fariintan idin sii dhiibay oo dhaheen waan gaarsiinay oo ummadihi yiraahdaan maya waxba nalama soo gaarsiinin alla waa caadil wuxuu ku leeyahay rusushii yaa markhaati idin inaad gaarsiiseen waxaan idin sii dhiibay markhaati ma haysataan yaa markhaati idina Muhammad iyo ummadiisa markaasay ummadan iimaanaysaa ku markhaati kacaysa rusushii ilaahay soo diray inay ummadihi loo diray gaarsiiyeen fariintii ilaahay وانا مدى إلهي مدو ليه تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس روحا عادل أهين مرخاتما نغنكرو نبي صلى الله عليه وسلم وحكوف السري وسطا بمعنى عدلا ومد عادلين أو أمدني حكيني سا عدالته إن هذا حقنا أبحين طريقة صحيحة هذا هيسته نبينا صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي ديمها إلهي أسودتشي دينت إلهي أسودتشي إلهي ديمة بدل ما سودتشين هل دين بوسودتشي دينت إسلام كا دينت سو إلهي أقودش عليها وحلقات دين ديكتو وانا دينت كساليسا سماح هذا التوصن الحليفية السمحة دينت سي أصل وحاوة تيسيرك فضيت إيا فضودين با أصلها ألا سودتشي naxariista ku sifaysan adoomadiisana u naxariista
addoommadiisana yaqaana tabartooda maxay galaan maxay gudaan maxay qaban karaan intay dhan yihiin allihii abuurtay oo garanayaa soo dejiyey saas daraaddeed axkaamteeda iyo faraa'ideeda iyo waajibaadkeedu waxay ku salaysan yihiin bini aadamka iyo karaankiisa muxuu kari karaa waxaadan kari karaynin kuma imaanin ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa allah meelo badan oo qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay wax kastoo cidhiidhi diineed ah alla waa idinka kor qaaday maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta dhexdeeda ilaahay cidhiidhi idinma gelinin culays idinma saarin ummadihii hore culayskii saarnaa baa ilaahay naga kor qaaday tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed waa diin fudud asalka takaaliifteedu waa fududahay haddana iyadoo fudud qawaacideeda ay ka mid tahay ayaa haddana meelaha marka qaarkood ruuxa axwaashiisa isbedbedelaysa ayaa waxay keeni kartaa ruuxu in wax markiisii hore fududaa asaga xaalad ku timid inay ku adkaataa dhici karta markaasaa haddana lasii fududeeyey bakhtigu waa kaa xaaraan laakiin markay naftu kuu qabato cun salaadii taagni ku tuko haddaad ku tukan kari weydood fadhiga awooddo fadhiga ku tuko xaalad kugu soo korodhay waay haddaad fadhigii kari weydo jiifka ku tuko xaalad kugu soo korodhay waay asalka soonku waa cibaado la kari karo laakiin markuu ruuxu safar galo inay ku cuslaataan laga yaabaa iska afur dibka qallee ruuxu markuu xanuunsado waxaa laga yaabaa inuu soonku ku adkaado iska afur gadaalka ka qallee ayadoo markeedii horeba fududaydba waxaa dhici karaysa xaalado inay ruuxa la soo darsaan wixii fududaa ku adkayn kara uu adkaan karayo markaasaa haddana lasii fududeeyey almashaqatu tajlibu taysiir idaa daaqa alamru ittasaca cidhiidhiba hadduu yimaado waa la furayaa waa la fududaynayaa saas way diintani sidaas daraaddeed qalqallafsanaan iyo isku adkayn iyo isku rafaadin iyo ma laha ruuxa diinta isku rafaadiyey waa ruux xadkeedii dhaafay ama xadkeedii ka soka maray labadaa mid waay laakiin dariiqaa dhexdhexe ruuxa haya ee diintu ku timid diintani waa u fududahay meelihii ilaahay wax fududeeyey qaado meelihii diinta asalkeedii ay ku timid ee cazaa'imtana casiimadeeda ku qaado laakiin adugu ha isku adkaynin diintu ma adkee nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ina addiina yusrun diintu waa fududahay walan yushaadda addiina axadun ilaa halabah ruux diinta sidiisaba iskuma taago oo inuu ka adkaado oo muxuu ahaayey uu wada maro iskuma dayo ilaa diintaa ka adkaata yaa xoog isuguma taago ruux ilaa way ka adkaataa maxaa laga wadaa ruuxuu yidhaahdo uun wada koob oo xuduuddeedii ilaalin weydiiyo taysiirkeediiyo fududaynteeda ilaalin waayaay marka dambe isaga unbaa daali diintiioo sii jirta ayuu wuxuu gaadhayaa marxalo uusan waxba qaban karin naftiisii ka hor timid oo uusan waxba dhaqaajin karayn sidaas daraaddeed mushaadaadka iyo isku taagga iyo muqaalabada iyo waan ka rayn iyo waan ka dulbixidaasi jooji taysiirka iyo fududaydka ku soco nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasallam fasadiduu yaa hadaf iyo taargad baa laydiin sameeyey waxaad samaysaa hadafkaa iyo taargadkaasi inaad toogan kartood asiibi karto oo aad la heli karto toogta isku day sadid waad la weyday soo maha qaaribuu ha fogaanin hadafkii lagu jeexay agtiisa ku dhufo laakiin meel fog ha aadin bimacnaa waxaa laga dhigayaa oo kale ruux wax tooganayoo kale ila ruuxa cibaadaysanaya diintan haystaaye hadaf buu leeyahay meel buu u socdaa waxaa lagu leeyahay inaad hesho iyadoo dhammaystiran inaad gaadho iyo inaad dhammaystirkii ku dhowaato labadaa mid samee laakiin inaad dhammaystirka ka fogaato ha yeelin nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasallam wa abshiruu bishaaraysta intaad saas tihiin intaad hadafka gaadhayso ama agtiisa aad joogtoodan ka fogaanin bishaarayso
أجر وين طريقي بعد هيسا واتسحسنت هاي أبال وين بعد إلهي أكتس كل هذا تبارك وتعالى لأن واحد هيسا وحدين تي أو آذن كدا لينين أو دوذي كرته أو دائمي كريساد هيسا كما ذن بحن مركز النبي وحوت المامي صلى الله عليه وسلم سي عملك أوسن كاغهر إيمان أو آذن أدالين waxaad samaysaa waqtiyada aad firfircoonida nashaadka hayso waqtiyada iyada ka faa'iideyso nafta marna nasi marna xilliyada haboon ee ay nashaadka hayso ka faa'iidee nabigu wuxuu ku tusaaleeyay oo kale ruuxa cibaadeysanaya sidii ruux safar oo kale ruuxa socotada ah xilliyo waxa jira socodku uu fiican yahay xilliyo waxa jira hadaad socoto adoon meel gaarin aadaalayso xilliyana socodkiiba haboono waxaad gooyin kartaa masaafo dheer baad gooyin kartaa adigoon daalin oon oomin oon rafaadin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxaad kaalmaysataan kalahaada iyo caraabaha iyo habeenka qaar kamida ood ka qaadataan haddaad tiraahdo habeen iyo maalin baan isku bixinayaa gaadiidna maadan badbaadinin adigiina meel maadan gaarin rafaaday oo daashay dhexdaadna ku go'dayo khayrkii kaga go'day sida musaafirka kale waqtiga ka faa'iiday habeenka qaar kamida gal subaxda hore kalahaada ka faa'iideyso naftu markaa nashaad bay haysaa caraabaha galabtii sidoo kale galabtii ka faa'iideyso xogaa nashaad ay haysaa xilliyana nasi xilliyana mubaaxaadka ilaahay u xalaaleeyay iyo ganacsigeeda iyo xamaalashadeeda iyo beerashadeeda gali saaca wa saaca ma aha diintani suufinimo iyo duurkalnimo iyo adduunyo ka go' ma aha ruhbaaniye ma aha saxaabiyadu markay ragga qaarkood yaa rasuulka ilaahay oo adduunkan waan nacnay shahawaadkeedii waxeeda ma rabno waan isdhufaanaynaa noo ogolow xiniyahayna iska goyn nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maaya diintani diin xiniyo la gooyo oo shahwada la baabiyo meehe waa diin la isku wado waa diin la isku wado waaye saasa ilaahay u soo dejiyay adduunkaaga camir aakhiradaadana ilaasho labada waqti waa kuugu filayeen xaggana ha u bixin xaggana ha u bixin xadkana ha dhaafin xuduudana ha ka soo marin nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiidka Abdullah ibn Abbas maalintii xajkiisii buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ii keen dhagaxyaashii aan tuuranayay dhagaxyaanta tuuri laha ii keen markaas uu keenay dhagaxyaal qadarkoodu leeg yahay kuwan la finiinka markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kuwan oo kale isticmaala marka tuuraysaan meelaha dhagaxyaanta lagu tuuro jamaraadka marka tuuraysaan qiyaastan oo kale markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam iyaakum wal ghuluw fi diin iska jira ina diinta xadkeeda dhaafisaan ummadihii hore waxay ku halaagsameen oo halaago baabiyay xadkii iyo xuduudii ilaahay dhigay soohdimihii bay dhaafeen maxaa laga hadlayaa dhagax yar oo meel lagu tuura laga hadlayaa qiyaastii dhaguxu uu lahaa hadaad mid weyn soo qaado tira shaydaanka ku dil oo meesha ku tuurtay غلو في الدين waa dhagax qiyaastiisii laga siyaadiyay waxa u malaysaa marka arimihii kale sidaas daraadeed shay walba meeshiisii qiyaastiisa kula dhaqan oo kula tacaamul sidaas aad aduguna aadan ku daalaynin oo ku soconi oo aad ku gaadhaysaa ujeedadaadii iyo hadafkii aad lahayd ilaahay inaad raali geliso jannana gasho hadii kalood isculaysiso ama manaahij kaliya jidad kale aad u baxdo aday ku taala نبينا صلوات ربي والسلام عليه أحاديث فربضان ومعناها كو إيمانيسو قرآن كفسيري سابو كتغي رسولك صلوات ربي والسلام عليه وحكم إذا حديث كبريدة الأسلمي وحيري وحان صومرني أني النبي قوضة صلى الله عليه وسلم أيان صومرني ننتو كني ننكو الركوع بدن السجود بدن بسجود الركوع ذا بدنيا مركز النبي قوحي صلى الله عليه وسلم ما كلتهي بريدو ما كلتهي نينكانو إنو استوستوس أتوكنايا استوستوس إلهي درتي إنيسان كاهين بريدو وحو يلي إلهي رسولك ساقرانيا
ani maxaan ka garanaa ruux tukanaya qalbigiisa waxa ku jira waxba ka garan maayo Soomaa ilaahay rasuulkiisa yaqaan rasuul aanu garan maayo markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alaykum hadiyan qasidan waxaad laazimtaan dariiq dhaxdhaxaada alaykum hadiyan qasidan dariiq dhaxdhaxaada laazima hayska badinina cibaadada heer aadaashaan hana ka soo kordhicina faraa'ida iyo waajibaadka diinta dariiqa dhaxdhaxaadka qabsada rasuulku sallallahu alayhi wasallam في صحيح البخاري سيدو كله وكان النبي وصو قال عائشة أم المؤمنين أو هويني كله أي لفردو وعكوير واتمتني وعيد الرسول كلا واهب لا ومحي ميشا كايسا وحي كشي كينيسا الصلاة دي صلاة بدان بيتو كتا مركز النبي صلى الله عليه وسلم تا اسكدا تشوتشي وحاد لازمتان أعماشا وحي آد كري كرتان لازمة وحد وذي كرت لازم وحد وذي كرت لازم محايل إلهي تبارك وتعالى أبال إنو ثواب كسين يو كاقوين مايو إلى أدوغو على العمل كاقوي سود كداش مركز النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أغوش عليا هي أعماشي الدين توحي لدائمه هبا يراده دين تاني مركز وتيسير ودين فضط adiga ha isku xuslaynin quluwiga iyo xadgudubku wuxuu galaa meelo badan iimaaniyaadka iyo aqeedada ayuu galaa baabul asmaa wal ahkaam waxay u yaqaanaan culimadu buu galaa dadka la xukumayo waana meeshuu ka galay khawaarijta nimankii nabigu ku tilmaamay dhulka inta korkiisa ku nool bay ugu shar badan yihiin halkaas ay aafadu ka gashay inay yiraahdaan ruux kasto dambi weyn galay gaal waay cid aan gaal ahayn oo muslimiina inay diinta ka saaraan qodobka labaadna inay dhiigii dadka muslimiinta sida ku xalaashadaan xagee quluwigu ka galay diin jacayl jihaad diinta ilaahay soo celiya xukumkii baa laga tagay soo celiya ومعاني في عن لكن حدود دي بي لدافتي إلى أي قارين إني المسلمين تقاليسيان دي قودنا بنيستان لكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم مركا دولك انت كنو البي أغشر بدين أيهو صلاة بدن وصوم بدن وعبادة بدن أن لقاري كان القرآن أخرس كود وحو قال يا عبادات كمر مركا غار كود وعبادة دي بعد لها كبض بدي سيادة أن شرعته بدقين بعد صاري لكن النبي صلى الله عليه وسلم رك صحابتي سكم إذا أي قريها النبي كتجار ودبر كصور صداد ورسول كسيء عبادة يستا دمر كي مركي أو الرمان عبادة دي الرسول كلا شيء جاي بابا كوير الله يرى طيبة ورمحان أنا النبي حقين كجوجنا إلى يدم بيجي سواب الرافي مسكوا كلا ناي ومعن زمينا دواين إنه دلالو كردينه mid ba soo boodo wuxuu yiri anugu habeenoo dhan waa soo jeedaya mana seexanay salaad baan u taagnaanay mid kale soo boodo wuxuu yiri anigana maalinoo dhan waa soo manaanaya mana afuray waligayba waan soomi mid kale soo boodo wuxuu yiri anigana waligay guursan maayo dumar iyo aniga shaqo isku mali mid kale yimid wuxuu yiri anuguna hilib cuni maayo hilib iyo waxyaalaha macaa waa iska daayay anuguna النبي وركي قال صلى الله عليه وسلم رجاس وخير دون يا عبادة ونقدون واي النبي وحكور صلى الله عليه وسلم ما إذن كاسدا يري ها لكن رسول الله خير ما نجدني النبي وحكور صلى الله عليه وسلم إلهي بنكر دارته أنا إلهي إذن كو أقانا أنا إذن كو عبسي بدن إما قاري كرتان وحي الشبهات كو حنبارتي صوماهن والرسول كإلهي بأود من رافزه وكلمنهن أن ددال وري ما قاري كرتان أنا إلهي إذن كو أقانا أنا إذن كو عبسي بدن إما سو قاري كرتان ومع ذلك السيدة يضوء أنو هبينك قارنا وان سيحن قارنا واستاقيا وان تكنيا مالمها قارنا والسوميا قارنا وان أفوريا دمرك وان قورسانيا هيربكنا وان عنيا
jidkayga ruuxii ka leexdana iga mid ma ah buu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam walu fiirso meeshay la gashay iyo nabigu siduu jidka ugu soo celiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marba diinta ilaahay u nusree oo diinta u hiili oo naftaada u bixi ay qarka la dhici kartaa marba salaada badi ay qarka la dhici kartaa marba soonka badi qarka la dhici karaa marba sadaqada badi ay qarka la dhici kartaa sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay marka aad cibaadaysanaysiin diintan qabsashadeeda inaad ku dadaasho dariiqa dhaxdhaxaadka dariiqaas xaqana aan jirin xagga iska jir xaqana iska jir dariiqa laazim kaawe ka nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ummadda kula talinayo quraankuna ka hadlayo markuu leeyahay إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتعيدك لا هي طريقة اسمرك وطريقا إلهي ويديسان إن هبيني مال بإهدنا الصراط المستقيم وطريقة سواء هذا الحق وقبح ذو تكسو كرد عدو الجفاء وكرد تفريطنا هذا يكوت الله هذا طريقة قدبتنا هذا يكوت الله سيبان طريقة السقوء إلى لنكرا سؤال laba arrimood haday midi ka maqan tahay dariiqaasi way adag tahay inaad ku sugnaato midda koobaad wax way inaad aqoon leedahay xageebay shariicadu wax dhigtay quraanku xageebu wax dhigay ahadiista nabigu xageey wax dhigeen cibaadadani seen loo dhigay sidee loo jideeyay maxaa shariicada rukhas ku yimid oo fududayn ah maxaa azaa'im ah inaad aqoonteedii leedahay ama cid aqoonteedii leh aad daba socotood ku xidhan tahay oo ka shidaal qaadanayso aqoon hada tiraahdo aqoon la'aan baan ku cibaadaysanaya cid ku hagtana aadan haynin adigiina aadan aqoon kugu filan lahayn shaki ma laha saad ku badbaado way adag tahay oo dariiqa ugu sugnaato arinta labaadeed u baahan tahay waxa weeye alla ka cabsi iyo xalaal miirasho iyo in aad diintan aad garanayso ay ilaahay dartiina ka tahay allana uga baqdo waxa badan intaasoo nin oo aqoon laho cilmi leh oo haddana cilmigoodii uu xumaanta ka reebi waayay waxa laga soo galay alla ka cabsigooda yar xalaal miirashadooda yar is ilaalintooda yar تحدر كودا ير علمي هدادن كدرين ورع إيه حلال ميرشة إيه خشية إلى هدادن كدرين كليجي كما أنفعيه أو إبليس ياك علمي بدن إبليس ياك علمي بدن علمي لابد له من عمل لبدا هدي آذن حقيقين أما عد حقيق سي آذن هجان كردجان ودوسعنين أو تراهدو أنيجا adiguna aadan isku filayn oodan haynin shaki maleed adoo jaahil ah oo ilaahay caabud leh oo diin u nusree leh oo cibaadaysa leh oo dadaal isle baad naarta ku dhici naartaad ku hoobani mithaalkeedana nabiga bixiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhalinyaradii quraan akhriska badnayd ee salaada badnayd ee soonka badnayd ee saxaabadiisa uu ku yiri ma gaari kartaan ee aan laga shakiin marnaba inay niyadoodu fiicnayd waxa aafeeyay oo naarta ku guray wax kale ma ahayne jahli iyo aqoon darra laga soo galay ayagu waxba garanaynin oo diinta aqoon u lahayn ayaa waxay yidhaahdeen xaqiijiya diinta u nusreeya wa xaqiijiya diintii soo celiya waxay la gashay muslimiinta gaalaysiiya dhiigoonadan banaysto laaya halkaasay naarta ku daateen sida nabigu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi aqoon darro aadan cid cilmi la ku xidhnayn oo ku hagta iyo diin xumo iyo alla ka cabsi la'aan iyo khashya la'aan iyo warac xumo labadaas waxay keenaan ama inaad xadkii ilaahay dhaafto ama inaad ka soko dhacdo waana mid quraankuna inooga digay nabiguna inooga digay waana labada jid ee naarta lagu galo waay in alla intii ummad luntay ama firqooyin lumay oo dariiqa sunnada ka baxay inta umba sabab u ahay ama way ka soo mareen ama way dardareen way dhaafeen ilaahi tabaaraka wa taala dariiqa saxda ah inugu sugo oo dariiqa mustaqiimka allah inugu dilo
وقصدك اعتدالك الله ينقصه إلى أن كل من صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك